golaha midowga musharaxiinta saa la socotiin xalay wuxuu soo saaray war-saxaafadeed oo uga hadlayo madaxweynaha madaxweyne Farmaajo oo dhamaaday iyo firaaqa dastuuriga arintaas ka dhalan kara sida lagu samata bixi karo lagu badbaadi karo murtiyeedkaas saxaafaddu way akhrisatay shacabka Soomaaliyeed way arkeen waxaan rabnaa inaan ku darno faahfaahin dheeraad aan ka bixino murtiyeedkaas asaga ah ko waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed u cadeyno in madaxweyne Farmaajo ama madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu samarna daacad ka ahayn doorasho dalka inay ka dhacdo waxaana sabab u ah inuu ku fashilmay doorashadii qof iyo codka ahayd in dalka laga qabto inuu ku fashilmay in doorashadii kala dadbaneed ee lagu heshiiyay asagii dowlad goboleed ku heshiiyeen ay soo weysay heshiiskii ugu dambeeyay 17 September 2020 lagu heshiiyay fulintiisii tabashooyin ku gadaamnaa kulli in uu fulintiisii asaga caqabad ku noqday saas daraadeed madaxweynaha wuxuu ku fashilmay inuu keeno heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu galo madaxweynayaashii asaga ka horeeyay oo mid kamid dhinaciga fadhiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku guuleysteen xilligii talada hayeen in ay heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay la keeno oo dalka doorasho lagu galo taas uu ku fashilmay madaxweyne asagoo laba maalin ka dhimantaa muddaxileedkiisa ayuu ka soo kacay shirkii asaga iyo dowlad goboleed ay fadhiyeen taasoo cadeynaysa inuu markasta damaciisa ahaa extension ama muddo kororsi walina oo baarlamaanka arintaas kula gaafureegay labo madaxweynaha waxaan kaloo anaga ku eedeynay inuu Soomaalina sharciga iyo dastuurka uusan ixtiraamin taariikhdiisa 4 sano kulligeed ay ahayd gacan ka hadal iyo violence iyo in markasta awood iyo ciidan laga hormariyo sharciga iyo dastuurka ugu dambeeyay ka baarlamaanka inuu soo galiyay 100 askari oo dharcada si xoog ah loogu marsiyo qorshe xukuumadda ay waday oo ahaa muddo kororsi madaxweynaha waxa isaga qaldan inay awoodu tahay sharciga iyo legitimacy inay tahay wuxuu haystaa awoodda inay ciidanka iyo tahay iyo security-ga iyo sirdoonka oo la adeegsado inay awoodta wali haystaa waa aqliyad faasida oo dadka Soomaaliyeed ay runtii hore ka soo gudbeen waxyaalaha la yaab waxa kamid ah maalin dhaweed daraad markuu ka hadlayay madaxweynaha baarlamaanka hadalkiisa ugu horeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhageysteen wuxuu sheegay baarlamaanka in muddadiisii ay dhamaatay haddana sharciyo muhiim ay baas gareeyay maadaama asaga uu ogolaa inay saas yeelaan wuxuu haystaa baarlamaanka muddaxileedkiisii dhamaaday sharciga oo baas gareeyay asaga inuu raali ka yahay inay ku socotay baarlamaanka oo u sheegayay waxa asaga oo raali ka yahay kaliya inay soco karaan yoon u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed u sheegno madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugu jiro waa inqilaab haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dawladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira dayta sidii 69 dhacday inqilaab abyad ama inqilaab wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoon ku fadhiya sababtoo ah cid kasta oo sharci darro ku fadhisa xukunka waa inqilaab madaxweynaha 4 sano waa dhamaatay wax mandate ama xil ama sharci oo maanta talada dalka oo ku fadhiyo ma jirto dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan walaha midowga musharaxiinta oo tilaabo ah kow dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u cadeyno mowqifkeena ku aadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweyne muddaxileedkiisii dhamaaday xukunkan si sharci darro ku jooga wax allaale wixii mas'uuliyadaas xukun boobka iyo awoodda lagu joogana inuu asaga qaadayo wixii ka yimaada inaan shacabka Soomaaliyeed aan u cadeyno talaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arintaas ula tacaalayno waa qaar kamidana waan soo jeedin xalay sida lagu buuxi karo firaaqa dastuuriga hadoo madaxweynaha waan toobi waayo xilkana dhigi waayo talada dalkan iska wareeji waayo talaabooyinka aan qaadi doono iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda iyo ficiladeena iyo hadaladeena iyo kulamadeena iyo doodaheena ayaa ku muuqan doonta waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon iraado waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay muddaxileedkiisii dhamaaday af laguma sii karo sharciyad farmaajo waa sharcigiisina muddaxileedkiisina waa dhamaaday doorashadan caqabado ku yahay xagga aan iska dhigno sida dadaalka beesha caalamka waa ka mahadnaqaynaa laakiin waxaan rabnaa inta doorashada diyaarka u ah stakeholderska doorashada diyaarka u ah daacadana ka inay doorasho aadaan oo anaga xalay aan ku muujino warmutiyeedkeena iyo ayaga inaan ka wada hadalno sidii dalkan doorasho loo aadilaa oo aysan waqti ku luminin nin hadda saaki raadinaya muddo kororsi raadinaya asoo sharci darro ku fadhiya madaxtooyada inaysan waqti aysan ku luminin mana doonayno haday way aragnimo ugu dhiman tahay Farmaajana
هذا وادد لونسنا ولي هباوسن بعد wax ugu dhimayn farmaajo wax ugu dhimayn farmaajo Soomaali intii ku filan way soo aragtay beesha caalamkana way soo aragtay waa caqabad dadkan iyo dalkan in laga horweeyo u baahan ilaahay mahadiisna xilligiya ka dhamaado si dabiici iyo sharci oo ku wareegay in ku sii korhayo sii joogana waxay kamid tahay xasilooni darada iyo qaran dumiska dalkan la damacsan yahay qayb ka tahay marka waxaan ka rajaynaynaa beesha caalamka xubnahooda qaarkood waliba inay ka waantoobaan inay farmaajo ay dalka iyo dadka wali ku sii korhayaan wax nacfi ugu jirana male waxaan rajaynaynaa madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uma muuqdo nin taariikhda iyo sooyaalka Soomaaliya wax ka bartay waayihii soo dhacayna nin wax ka bartay uma muuqdo waxaan rajaynaynaa cid wax garata oo tala ku leh haday jirto oo waayahaas iyo taariikhdaas u soo nooleed inay aqal cilisaan rajaynaynaa